جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء barnaamijkeeni liibaanta guurka maanta waxaan u fadhinaa inaan doorano lamaane wanaagsan, gabar wanaagsan iyo wiil wanaagsan. marka sheekhana su'aashu waxay tahay sidee ayaan ku doortaa lamaane wanaagsan? lamaanaha wanaagsan qaabka loo dooranayo waxay u muuqanaysaa kulli qof kastoo diinta yaqaana waa arrin uu nabi maxamed noo sheegay sallallahu alayhi wasallam. alxamdulillah kitaabka quraanka ilaahay waxa kaga matagin wax walba noo sheegay. tunkaxu lmar'atu liarbac, haweenka marka laga hadlayo afar baa loo guursadaa. waxaa loo guursadaa maal inay leedahay, rag baa ku doorta oo maalka un ka hela. rag baa waxay ku guursadaan quruxda, rag baa quruxda ka hela. qaar baa waxay ku guursadaan qoyska wanaagsan, qaar baa waxay ku guursadaan diinta. afartaa arrimood buu nabigu noo sheegay, waana xadiis saxiixa weeye. talabatulcilmigo dhanna way yaqaanaan, laakiin nabigu marka u dambeeyey sal slam wuxuu farta ku fiiqay midda diinta leh. limaada? lianna diintu ayadaa xuquuqda dadka kala baraysa, ayadaa xaqaa ku siinaysa. diintu ayadaa gabadha xaqeeda siinaysa, diintu ayadaa baraysa xuquuqda sodohda, xuquuqda sodoga, xuquuqda martida, xuquuqda labada qof ka dhaxaysa, xaqa allah iyo xaqa rasuulka sal ly slam iyo xaqa ummadoo dhan. taas way midda labadiina isku xidhaysa, allah inay caabudo adigana xaqaa ku siiso. sideen ku doortaa, sideen ku ogaada aniga gabadha inay diin leedahay? sababta haddaan rabaa inaan doorto marka inay diinteedu dhammaystiran tahay gabadh diin leh, taqaana, ku camal falay, sideen baan ku ogaan karaa? way diintu waa muhiim. qofka markuu baadiyaha markii la joogo waa la sahmiyaa, xooluhu meesha daaqayaan iyo reerka meesha la dejinayo, wax sahan la yidhahdaa la sameeyaa. sahanka guurka wax le waa inaad samaysaa. shaxambeli waa gabadh le maalan, tusaale ahaan oo kale waad ku maqashay, waad ogaanaysaa soo maaha. kadib waad ogaanaysaa gabadhii akhlaaqda, qoys wanaagsan, qof diin leh, reer magaaladan hadda aan joogno oo kale maalan waa la yaqaanaa. marka sahanka iyo weydiintu waa furaha koowaad ee ku siinaya qofkana doonayso inuu diin leeyahay. nacam, inuu diin leeyahay, inuu akhlaaq leeyahay. si fiican. sheekhana maalmahan waxaad arkaysaa qof gabar Itoobiya joogta asigoo jooga America guursanaya oo kale. marka qofka markuu lamaano uu rabo inuu doorto maxaa wanaagsan, ma inay isku dal ay joogaan mise kala dal? sidoo ku doortaa arintaas? qofka aniga waxay la tahay qofka duntiisii iyo wanaagiisa, diintiisii iyo akhlaaqdiisa ayaa wanaagsan. qofka markuu qaali yahay, meeshaad rabto meeshuu joogo waad u dooran kartaa. ninna kuma fakarayn matalan hadda North Pole-ka adduunka iyo Denmark inaan joogi doono annaga oo ka nimid bariga Afrika. marka masaafadu muhiim ma aha. qofka haddii matalan qof wanaagsan meel lagugu sheego, meeshaad rabtaad u dooran kartaa. laakiin ujeeddadu waxaa weeye hadhow markii la isguursado, intaan la isguursanin in laga wada hadlo meesha lagu noolaan doono iyo sida la isugu imaan doono. in marka xagga qalbiga iyo xagga caatifadda bas la fiiriyo, waa isjecellahay, waa israbnaa, maasha allah, waad qanacsan mahe, in lagu daro seen isku arki doonaa. arrimahaas in la isla daraasayo, la islana fahmo waa lagama maarmaan. tajrubada iyo nolosha hadda ka jirta wadamadan markaan fiirino, runtii dadku markay kala fogaadaan akhiiran ilaa dad yar mooyeen way kala tagaan. asbaabaha keenayana waa duruufta maadiga ah, waa kala fogaanshada. maanta adduunku aad u kala fog yahay, waa adduunka oo dhaqaalihiisu aad u adkaaday. run ahaantii dad fara badan baanu aragnay oo intay isaa isku guursadeen kala tagay. walidaalika tala ahaan sheekhuna uu waafaqayo, tala ahaan waxaan aad u soo jeedinaynaa qofka doonaya inuu meel joogo, meel ka guursado, waxaa ficlaan lahayd inuu qof u dhow oo duruufta ay u suurtagelayso inuu guursado. intaa waa daruuri. ijtimaaci ahaanna wayba muhiimba oo markii matalan la yidhaahdo gabdhihii meeshan joogayna wiilal Afrika ha u doonteen, wiilashii meeshan joogayna gabdho Afrika ha u doonteen, ayadoo laftooda waa dhibaato. yani dadkii meeshan joogay, dadkii dariska ahaa, mujtamacan iyaga ayaa xaq isu leh
iyaga ayaa xaq isku leh iyaga ayaa inay maaragtay is asturaan iyaga ayaa inay is doortaan la doonayaa marka dadka inta isu dhow inay is doortaan way laakiin haddii hadda ma jirto waxaan dhihi karno يعني ما بنانا يعني إنه قفنا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا كوب بيئة مشهد كعب بيسو كوب شاه مشهد كعب بيسو هي مشهد قبر مالي فرشة في سنة يسو لوح المحفوظ بيقول قرنطان وحان شيغني لا محمود وقت الخلاف كما تقولون وحان شيغني يعني سيدا يعني غالب ما حبون اني تهاي dadka intii isku meel joogto inay nolol wadaagaan صح وغالب laakiin uga deeyo carafka la celin karo caraf la macna حتى qofka gabadh ka fog haduu guursado yani ma ogaa ka gabadhaas in sabiq la soo diraa markan video aka حتى ma ogaa ka gabadhaas in sidaas xaqiiq ahaan yani wallahi waran ما Soomaali hadda laba kala maqan kala taas waa anigu hadda fiiri islaantayda waligay ma arkin markan guurso islaante تيوا على كوستا والله ما arkin كنت sawirkoodana ma arkin waaga Facebook ma jiro ma wuu jira والله ربادينودا ku weynaydo marka waxaas waxa ribadinooda wala asal waxay inuu arko arta ku jiido niyo wada xasan joogtay official de ma ahayn markii aan is dooranay annagu aan warqado isu qorqornay waxa isku dooranay markii baan waa tahriib baan soo tahriib ma arkina muuqaalka wada wala ay ku jiido ku diidiya ma ina anna kuma dhiiranin hadii dibka ku istaa gabadha waxa way gabadha iyada oo ii sheeg oo meesha joogta ana buurka igu jirin ba meelahaasna oo soo foofka naga boosan gaarin ba wasaas tahriib baa la wadageysnaa inama al-amalu binniyat bay u sheeg gabadha waa garanayso qabta waxay ku dhigeen gabadha adun wanaagsan macallin nin wanaagsan baa tahay gabadha nin wanaagsan gabadha ku dhaafin waan iska dhaga tiray midaan iska dhaga tiray midaan iska dhaga tiray intii markii dambe hadee way igu celiyeen maya gabadh fiican way waa sida marka waan iska guddoomay asaas baya ilaahay lacanta meesha aan ku gudbay taado ma xaajaan ka جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا